heshiis baa idinka daba geenaya Ciro iyo Dani waa wada xiriireen Dani waa musharax 2023 dhulkani SSC Khaatumo maadaama maamulka curtay waxba la isdhaafsaday Dani iyo Ciro wuxuu yiri xildhibaanadii Isaaq tanse tii hore oo gashay tanse uma hilgarayso waa ognahay laakiin inuu ku baraarugsanaan weeye waxa la abaabulay in laga dhaxkumaysto ciidamada SSC waxa la abaabulay in conflict laga dhaxabuuro ciidamada nin durbaan tuntay baa leeyahay iqlaad dalbay madaxweyne adiga yiri xukuumad baan hogaaminaya dalka ana hogaaminay adiga yiri aawo ciidanka SSC Khaatumo ma tababartay maxaad guuto soo saartay xuquuqdooda ma siisay ragga dhul bahantana waxaan leeyahay ciidanka ee diiday gudnimo ee diidayna faleeyahay tagaan in maamulkooda lagu burburiyo waxaan leeyahay ma mahasanidiin aad ba mahasantay taariikhda ay cusub doonto Axmed Cilmi Xismaan Axmed Kalaashna waxaan leeyahay hanaqon ninkii tusaalaada tukaday ee weysada qabay ee markuu ataxayaadka maray ataxayaadka ka dhuuso adeerow halgamaabaad ahayd dhulkan ku sutan dhulkaaga yaan curaar bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'iin ala umuri dunya wa diin wa sallallahu nabiyina Muhammad alayhi salatu wa salaam horta way salaamay Ramadaan mubaarak dhamaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer SSC Khaatumo muuqaalkan wuxuu ku qusay reer SSC Khaatumo gaarsiin qof kale haddana reer SSC Khaatumo walaalo iska bax rooguma tala galin waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin khatar ah oo soo wajahan bilowgeedina maanta la arkay waxaan rabaa qof ka soo reer SSC Khaatumo muuqaalkan gaarsiisan oo waliba dhagax furtaan runta waxa la hadal iyo ilkaba waa la cadeeyaa runta la sheegay war dib bay idii xasuusinaya dhulkeena markii cadawgu iimaanayay iskama imaan waxa weeye dhulkeena wuxuu ka yimid heshiis iyo istiraatiijiyad marka maamulkii deegaanka gacanta ku hayay iyo maamulka kale argagixisadaha ay wada galeen dhulkeena waxa loo bixiyay curaar baa loo bixiyay kursi xamar ah madaxweynihii waaga joogay Puntland 2004 ayaa heshiis kula galay kooxda TPLF in xamar isagana la geeyo dhulkan uu SRabta ku wareejiyo si jabhadii ona lefto oo meeshan waxa weeye dhulkeena lagu sheegay jiray ama dhulkeena aan wax runtii dhibaato kala kulmi jirin si taa loo soo afjaro ilaa isfna xamar madaxweyne looga dhigo sida daraadeed ba dhulkeena ii door loo gacan galiyay waxa kale inta kulaneed ciidanka reer SSC Khaatumo ama hadan afka ku balaariyo dhul bahante cududdiisii awoodiisii abaysalay bay taale maalintii xamar la tagay ba xamar la aaday sidaas keentay cadawguna dhulkana si fudud waxa weey hadii la kuuriyay gacantooda u galo maamulkii aynu gacanta u gelinay 98kii baana bixiyay taasa keentay inay 15 sano aynu ka soo waaqsano oo dhibaato badan dhacdo oo ugu dambeyn 2023 aynu malafka soo afjarno isu eeka maalmuhu 2004 iyo maanta 2022 isu eeka jamaahir dhaga furo waxa isbedelay waa dawladda Itoobiya ee TPLF baa isbedelay booskoodii waxa galay Imaaraat baa galay heshiis baa idinka daba geenaya Ciro iyo Dani waa wada xiriireen Dani waa musharax 2023 dhulkani SSC Khaatumo maadaama maamulka curtay waxba la isdhaafsaday Dani iyo Ciro wuxuu yiri xildhibaanadii Isaaq ee waxa weeye hadii la ku koonfur jooga waa ku saxay Dani iyo madaxweyne ka dhigayaan inay madaxweyne ku doortaan aduguna mid ii saxa inaad kadaha waxa weey Puntland inaad ka xidhiidho SSC Khaatumo si aan si fudud aan gacanta ugu dhigo sidoo kale igala shaqeey furfurka ciidamada SSC Khaatumo adigana waxa weey madaxweyne Soomaaliyeed baan ka dhiganaa ogaada reer SSC Khaatumo madaxweyne ka soo kursiga Garowe ama Puntland fadhiya wuxuu taayid ku yahay waxa weey dhulkeena culaarna uu bixiyo kursi xamar ku raadsado tanse tii hore oo gashay tanse uma hilgarayso waa ognahay laakiin inuu ku baraarugsanaan weeye waxa la abaabulay in laga dhaxkumaysto ciidamada SSC waxa la abaabulay in conflict laga dhaxabuuro ciidamada waxa la abaabulay arrimo waaweyn malafkaas Dani wuxuu u wakiishay Logator oo Garowe jooga wala socona boocama ka bilaabatay hadda kor waa ka hadlay wixii boocama ka dhacay baa loo yahay wixii controlka ka dhacay falilaale maalintii madaxweynuhu tirac socday baa ogtihiin mar rabana details badan inaan qoro shir baa Garowe ka dhacay shirka Garowe ka dhacay waxa lagu go'aansaday malafka Logator baa la marinaya moogta in ciidamada Axmed Karaash iyo niman kale oo dhul bahanta oo hore Puntland uga tirsanaan jiray xoogaa hadda malaha qaarkoodna waxa uu loo tuuro in la yiraahdo hala soo saaro oo hala keena falilaale oo jiidaha soo baneeyaan
sidaan xogaha ku helay dhamaantoodna aan khadka telefoon kula xiriiray dhamaantood waa ay diideen marka laga reebo ciidanka Axmed Karaash oo oday weyn oo deegaankan sumcad ku lahaa halgankii la soo marayna ku amaanana wax badan oo wanaagsan oo qabtay laakiin caaw halka ay fadhido waa arin aad iyo aad u foolxun weeye in ciidanka Axmed Karaash oo 12 gaari ay caawa faleeyahay joogan oo jiida ergaaw furan tahay oo salinta ay furan tahay oo jiidu ay furan yihiin hadii 12 Axmed Karaash ciidanka isi qaato bashantash noocay ka yihiin boqolkiiba hal xataa kama aha ognahay laakiin waxa nasiib daraa nin u baahantaa oo reer isi qaatuma inuu aragti dadkiisa lidu ku ah inuu awaamiirtooda qaato oo aragti imaaraad laga soo waariday u shaqeeyo taamaana filay wali Axmed Karaash waxa la sheegay hubka beesha uu ka soo jeedo ayaa hubka qaybka wax ku leh waxaan rabaa inaan warning u diro oo aan dhaho walaalayaalow arintani waa wixii aynu soo marray 10 aynu ka baranno qof khaldamay yaan ummadan loo duleyn muhiimadu waxa weeye inaad ogaataan oo aad ka hawlgashaan oo ninka Axmed Karaash aad runtii xaqiiqada loo sheego taasna waa qodob waxaan leeyahay waa qodob ragga diiday ee maanta yiri ka bixi mayno anagu iska ilaawana khaatumaanahay ee diiday in la gurguriyo waan u mahadnaqayaa waana geesiyaal weeye waxaan leeyahay awogay xaaji Ciise Gadla hadda ka hor isagoo cadan jooga ayaa qoliyo familkayga oo ayuu la hadlayay markaas waxa ugu mahmaah wuxuu war Maxamed Galaaruna hayso sheegan hana isbartaan reer SSC khaatumo waxaan leeyahay waruna hayso sheegno aynu isbaranno taasna waa qodob qofkii maanta $1 cad guursiya Puntland ka qaata oo leh waxa weeye awaamiirta dani iyo imaaraadka iyo cirro wada socdaan fulinaya haar burhaanik baalena fasax baa u tahay wallahi inaan cid ku qabsanayn laakiin taariikhda baal madow iyo bal madow aad ka garaysaa taasna waa qodob weeye nimanka diidayna waa u mahadnaqaya waxaan rabaa inaan dhaliisho ugu weyn aan saaro oo cidda dhaliisha leh cid kale ma aha maamulka khaatumo ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali waxaan leeyahay madaxweyne maanta ma aanan filayn in si inaga dhaxdeena internal ahaan laga dhax kulmaysto adigoo kaabayaasha dhaqaaluhu ku dhisan yihiin dawladnimadii hana qaatay aan ogna halka dawladda marayso inaad ciidankii dhamaa ee dalkan iyo deegaanka bacad uu ka sifeeyay inaad burburisid oo aad ilgooni ku fiirin weydii oo aad ignore garaysid waa nasiib darro weyn weeye xukuumaddaadana dul hooganayso wax la isu qarinaya ma jirto xukuumaddaadu way ku fashilantay ciidamada militariga maarantoodu way ku fashilantay anigu xoogaal baan wahay taasina waxay noqonaysaa mid taariikh xun oo xukuumaddaada lagu waxa weeye la kuray lagu xasuusto ay noqonaysaa ciidanka SSC geesiyada difaaca ku jira in la taakuleeyo la dhaqaaleeyo la dhiirigeliyo tababar loo furo oo la tayeeyaheed 18 bilood kadib in hal guuto ciidankiisa qaatuma xitaa tababar loo furo waayo xuquuqdooda ay waayaan waa nasiib darro weeye madaxweyne waa xukuumaddaada nasiib darro dul hoganaysa weeye wax kasta wasaarad laami la dhisay arrimo kala dhisay muhiim ah waxa u muhiimsan weeye dal iyo dawlad iyo maamul wuxuu ku dhisan yahay waa ciidan weeye ciidanka haddaad ignore garayseen oo aad diideen inaad tageysaan oo aad diideen xuquuqdiisa siisaan waxaa la tahay cid kale la shaqeynaysaa waa sidaan u muuqato ninka waxa uu ku dhisan yahay iyo waxa weeye hadii la ku tiirarka ku taagan yahay ninka ka shaqeeya inay jilicdo ama ay burburto hadda waa ninka shaqeynaya inuu dumo weeye xalaya xukuumaddaadu waa ku fashilantay madaxweyne inta maalmood ee muddo ku harsan mas'uuliyadda deegaankan adiga haya cid aan adiga in laga xisabtay maadiga xukuumaddaada حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف ولا مسؤول دل الرعية مع أنت اللي داري دل كان يديجان كان مسؤول الديجان كان مسؤول دول المصارع من دربان تنتبه لي إغلاق دل بي ما نحن هذيك غير حكومة بان هو جاميني دل كان له جاميني هذيك غيري أو إذا كيسي خاتمه ما توبرتي ما حد قلته صو صارتي حقوقه المصيصة نقال الآن ما شفته عشور تلقاطع وحوي ميزانيد سند والبا يدل والبا كربا وكعدا حقوق عيدن كان مدحويني حقوق عيدن كان الى هذا مدحوينه ديغان كا
in dani iyo tiimkiisu ka dhex kulamaystaan suuragal ma waa waxa laga helay dawladdaada weey iyo xukuumaddaada wixii falilaayay maalintii ka dhacayna nasiib darro ka weyn ma jirto taasna xukuumaddaada mas'uulka wax kasto deegaan ka dhaca xukuumaddaada mas'uulka noqonaysa sababta waxa weey xukuumadda mas'uulka ugu dambeyn reer SC Khaatumo waxaan leeyahay jamaahiirta waxaan leeyahay waxa la idinku soo qaaday duulaan weyn baa la idinku soo qaaday xukuumaddiina iyo dawladdiina indhaha ay ka laabanaysaa gacmaha way ka laabanaysaa idima sheegi karto anu xoogaal baan u ah meel aanan la xiriirin jirto waxaan leeyahay reer SC Khaatumo war diyaar garoow war cadawga idinku soo fool iyo kala idin gacmo qabanaya ee idin labadabi qabanaya war isku meel u istaaga oo u diyaar garooba oo dhulkina la doonayno curaal loo haysto kursi xamar in lagu raadsado dawladda aynu rabnayna dhahno dawlad kaali maamul kaali madaxweyne kaali waxyaabii asaasiga ah ay ku dhisneen waa tabayacada ciidankiya hal diyaar garoobo oo heegan hal galo oo waxa way hal diyaar garoobo ragga dhulbahantana waxaan leeyahay ciidanka ee diiday gudnimo ee diidayna faleeyahay tagaan in maamulkooda lagu burburiyo waxaan leeyahay ma mahsanidin aad ba maasanta taariikhda ay xusu doonto Axmed Cilmi Xismaan Axmed Kalaashna waxaan leeyahay hanaqon ninkii tusaalaada tukaday ee weysada qabay ee markuu ataxayaadka maray ataxayaadka ka dhuuso adeerow halgamaabaad ahayd dhulkan ku sutan dhulkaaga yaan curaar yaan lagu dhiirigelin curaar dib loo qabsado oo cadow u qabsado oo nin xamar u socdo kursi xamar u socdo yaan dhulkaaga uu hadii la kuurayay yaan kugu balkan waxa way percentage ciidanka uu yahay waa garanana wiilasha halyeeyada ee dhulbahantay gawaarida saaran waxaan leeyahay ha ogolaan ka daga ku laabta jiidihiin ku laabta gawaarida u faaruqiya Axmed haduu gartay inuu ciidankiisa faleeyahay waxa way fadhiisay oo nin dhulbahanto reergaabooda haduu taa gartay gawaarida u baneeyo jiidaha taga dhalinyaro wiilka 20 jirka dhulbahantaan la hadlaya ee 30 jirka dhulbahantaan la hadlaya dalkan iyo deegaankan dhaxalka cid u harileed adeeg weeye odayaasha waaweyn wixii 60 kor dhaafay waa qorax asad joogto weeye waxa la doonay dhaxalkaaga lagu ciyaaro waxa la doonay waxa weeye wiilashii dalkan iyo deegaanka naftooda u horeystay boqol ahaa in dhaxalkoodii la mooso oo dhiigooda la khiyaameeyo oo nin gabalkiisu dhacay uu doonay inuu khiyaameeyo jamaahiirta waxaan leeyahay ama ergaabo joog saraag joog ama sool joog ama boodo joog isbedel baa loo baahan yahay dalkaynu badbaadino xukuumadda badbaadino ciidamada badbaadino baynu u baahanaa warkaan idin sheegayna waa xaqiiq weeye waxba idin qarin maayo anigu ninkii ugu jeclaanaya iyo ninkii waxa way igu nacayo isaga u taala marada xaraxaraw sidan ka adkaayeen baaban ummadda baraarujinay maanta dalka iyo deegaanka la doonayo in la khiyaamayo oo heshiiska imaaraadka daniya ciraynu hirgeliyo iyo kuwa waxa way dhulbahantaa oo aragti fogeyn inay u adeegaan iyo xukuumadeedii oo ka jilcday oo indhaha ka daawanaysa oo gacmaha ka laabatay aamusumayno insha Allah ta'ala wiilasha jiidaha ku sugan waxaan leeyahay dhulkiini weey waa ilmahaaga shahwadaada ka abuurmay in dhaxal fiican ugu tagtay ama inuu gumeed bu noqonayaa inuu gumeed hoos fariista ka xamar kursiga u raadsanaya ama wuxuu noqonayaa nin gobonimada maanta ku nool yahay ku noolaada aad ba maasatay muuqaalkana iskaarsiiyay